Si loo horumariyo goobaha cibaadada ee masaajidada ayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Jubbaland waxay agab dhismo oo shamiido ka mid tahay geysay masaajidka Jaamac Kabiir oo laga dhisayo xaafadda Laba Suul ee magaalada Kismaayo kaasoo dhismihiisa uu marayo heer gabagaba ah. Munaasabada kooban oo lagu qabtay xarunta masaajidka ayaa ahayd mid ay mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Jubbaland ay guddiga dhismaha masaajidka gacanta ku hayo ugu wareejiyeen agabka dhismaha kaasoo ay wasaaraddu ugu qayb qaadanayso dhismaha masaajidka. Munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta, ku-xigeenka wasiirka, qaar ka mid ah culamaa u diinka magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda. Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah guddiga gacanta ku hayo dhismaha masaajidka ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta dhismaha masaajidka. waa dhismihii masjidka loogu magac daray Al-Jaamicul Kabiir oo laga dhisahayay baryahanba Kismaayo. Masjidkaas oo muddo 6 bilood ah soo socday sanadkan bilowgiisii la kowsaday, haddana meeshan la wada arki karo oo dabaqii hoose in la daday marahaya. Marka culimadii soo waday waayo haddii aanu nahay sida Sheekh Jaamac Suleymaan iyo aniga oo Caluur Sheekh Aadan waxaan soo dhawaynhaynaa maanta si gaar ah iyadoo mar walba ilaa bilowgii ilaa dhammaadkii mar walba xataa dhagax dhigii wasaaraddu ay dhagax dhigtay masjidka ayadu intaan aan soo wada wadnay, laakiin waxaa xusid gaara mudan maanta oo isniin inay wasaaraddii dhammaanteed wasiirkii way markaas diinta iyo arrimaha diinta iyo awqaafta waayo Abu Yuusuf iyo wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimayaashii dhammaan iyo ugaasyadii way markaas magaalada macal ashraaftii kulli dhammaan inayna soo booqdeen, kuwan haddana nala wada taagan ay yihiin. awalan waxaan leenahay soo dhawaada oo soo dhawaada oo soo dhawaada awalna waa dhaweydeen insha Allah taala. masjidkii marka waa kan masjidka waxay u wadeen qalab dhismo oo shamiin dabale marka ay kow ka tahay. marka alxamdulillah rabbil caalamiin aad baan ugu faraxsanahay wasaaradda iyo ka qayb qaadashada. Wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda wasaaradda u leedahay horumarinta goobaha cibaadada, waxaana uu sidoo kale fariin u diray dadka Alle wax siiyay oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka. Waxaan isku boorinaynaa dhammaanteen inaan ka qayb qaadano goobaha saan oo kale, cid kastoo bilowda ciddii dhexda ka qabato iyo ciddii dhammaytirtaba waa arrin loo baahan in laga qayb qaato. haddii aan annaga maanta u istaagin dhismaha goobaheena cibaado, dhismaha goobaheena waxbarasho, dhismaha goobaheena maamul, cid noo maqan ma lahan. qof bilaadan waxaa fiican haddii uu qof bilaadan adoo kala wax uu sameyn karo, waxaa fiican adiga ugu horeyso aad noqoto shakhsiga wax fiican sameynaya, aadan gacanta u hoorsanin shakhsi adigoo kala dhaqaalihiisana aadan ku xisaabtamin. dhismaha intuu leegi wada dareemaysaan maanta dad kale iyo hay'ado iyo mataa kuleynayaan isxilqaan dadka bulshada runtii reer Jubbaland gaar ahaan iyo bulshada islaamka oo dhammaan bay joogaan waxay ka soo qayb qaadanayaan dhismaha masaajidkaas. maxaa diiday marka anaga inaan wax walba u baahannahay aan saasoo kale u wada qayb qaadano, wax diiday ma lahan. marka insha Allah taala waxaan isku boorarnaynaa kulligeen baan isku dardaarmaynaa inaan ka wada qayb qaadano dhismaha masaajidada, dhismaha goobaha culumta lagu barto, dhismaha lagu horumariyo bulshadeena anagoo isku tashanayna. wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta Jubbaland ayaa muddooyinkii dambe waday qorshayaal lagu horumarinayo goobaha cibaadada iyo sare u qaadida diinta suuban. Fartuun Bishaar Maxamed, warbaahinta Star, magaalada Kismaayo.